su-aashiisa kale waxay xaruntan dhaqankee laga cabanayo muxuu noqonayaa arrinkeedu iyada iyo meel kastaba. Sheekh Dirir ayaa ka hadlay dhaqan xumadii iskuulka Abaarsi sidoo kale jaamacadda iskuulkaas ku lamaan ee Barwaaqo. haddaba daawadayaal intaan idiin soo gudbin fariinta Sheekh Dirir waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaad muuqaalkan like saartaan si ay u baahdo fariinta wariye samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon. mahadsanidin. haddaba daawadayaal sad laba socoteen maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada aad looga hadlayay iskuul la yiraahdo Abaarso iyo jaamacadda iskuulkaas ku lamaan oo la yiraahdo Barwaaqo ay wax ku bartaan gabdho Soomaaliyeed. waxaan iskuulkaasi iyo jaamacaddaasi maamula hay'ado shisheeye oo Kristaan ah waxaana wakiil uga iskuuladaasi haweeney lagu magacaabo Baadirid Joy Ciisa oo ah wadaadda tobanaad ee ugu saameynta badan qaaradan Afrika diinta Kiristaanka. sidoo kale waxaa maamula sare ka ah xaruntani nin lagu magacaabo Henderson Cooper oo u dhashay waddanka Mareykanka ahna wariye caan oo u soo shaqeeyay telefishinka CNN. waxaana jirtay in wariye samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon uu banaanka keenay xogo fara badan oo bulshada Soomaaliyeed ka qarsoonaa ku aadan dhaqan xumada lagu barta xaruntaasi asagoo soo bandhigay xogo xaqiiq ah isla markaasna ay ku adkaatay in ay cadeeyaan maamulayaasha iskuulka Abaarso ee Soomaalida ah iyo sidoo kale maamulka Muuse Bixi Cabdi. waxaana arrintaasi ka careysiisay hay'adaha shisheeye ee iskuulka malaayiinta doolar ku bixiya. taas ayaana keentay in maamulka Muuse Bixi Cabdi lagu cadaadiyo inuu xabsiga u taxaabo samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon. hase yeeshee dad fara badan oo caan ah oo Soomaali ayaa ka hadlay arrintan ayagoo siyaabo kala duwan uga hadlay. sidoo kale waxaa jirtay inay hadleen arday Soomaaliyeed oo wax ka baran jirtay iskuulka Abaarsi iyo jaamacadda Barwaaqo oo sheegay in xarumahaasi yihiin xarumo lagu faafiyo diinta Kiristaanka isla markaana ay macallimiin ka yihiin wadaadda Kristaan ah maalin walbana lagu amro ardaydaasi in ay sameeyaan wax lid ku ah diinta Islaamka. haddaba daawadayaal waxaan idin soo gudbinayaa fariinta Sheekh Dirir waxaana dhammaantiin idinka codsanayaa inaad muuqaalkan like saartaan siina share gareysaan oo asxaabtiina la wadaagtaan si u baahdo fariinta wariye samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon kuna soo dhawaada sida uu uga hadlay arrintaasi Sheekh Mustafa Xaaji Dirir. su-aashiisa kale waxay xaruntan dhaqankee laga cabanayo muxuu noqonayaa arrinkeedu iyada iyo meel kastaba oo lagu hayo wax kasta oo shareecada khilaafsan. maamulku wuxuu u xil saaran yahay in ummadda laga hor joogsado ama waxaa lagu haya laga saaro ama hadafka baydhsan ee dadkaasi ay ku hayaan meesha in laga badbaadiyo. waayo dadka mas-uuliyiinta ahi waxay u xil saaran yihiin ay u dhaarteen in dadka ay u ilaalinayaan diintooda iyo dalkooda iyo ammaanooyinkooda oo dhan. marka haddii cabasha timaaddo waa in daraasad la sameeyaa la isdultaagaa oo la yidhaahdaa waxan maxaa ka xun. haddii ay caddaato waxaa ka xuna la sheegayaa waa in waxaa meesha laga saaraa. oo innagu dhaqankeennu waa dhaqan islaamiya oo nasiiho hufan dhaqamo shisheeye in la soo waarido oo la yidhaahdo ama waxbaa laga raadinaya ama waa lagu ilbaxayaa waa arrin aad u qalada. marka had iyo jeer markuu mujtamacu wax diida bulshadu waa in la dhegaysto mas-uuliyiintuna dhegaystaan cidda waxaa lagu tuhmayaana dhegaystaan wixii ceeb iyo qalad iyo dembiya deg deg loo saxaa. waajib bay inagu tahay wixii munkarana inaynu diidno wixii macruufee wanaagana inaynu isfarno sidaasaana lagu badbaadayaa. haddii taasi ay suuroobi weydana dee daadka ka yimaada iyo dabka ka bilaabma weyna wada ay ku hayaan meesha in laga badbaadiyo. waayo dadka mas-uuliyiinta ahi waxay u xil saaran yihiin ay u dhaarteen in dadka ay u ilaalinayaan diintooda iyo dalkooda iyo ammaanooyinkooda oo dhan. marka haddii cabasha timaaddo waa in daraasad la sameeyaa la isdultaagaa oo la yidhaahdaa waxan maxaa ka xun. haddii ay caddaato waxaa ka xuna la sheegayaa waa in waxaa meesha laga saaraa.